gantaalkan oo lagu naanayso khaarijiyaha baalistiga ah ee marka kor laga eego uu qaabka eeg fuuqa xabad rasaas ah wuxuu aasnaa dhowr 10 sanaale gantaalkan oo Yamaniyiintu sidoo kale uga adeegteen dagaalkii fashilmay ay ku qaadeen isbahaysigii ay hogaaminayeen Sacuudiga iyo Imaaraadku oo naqshad ahaan u qaab eg yahay gantaalka Iskandar ee dalka Ruushka isagoo qarxa marka uu 16 mitir u jirsado bartilmaameedkiisa waliba dhinaca sare taasoo abuurta awood burburise ah oo aan caadi ahayn oo mar quraq uusin karta xitaa maraakiibta dagaalka maxay hadaba tahay sheekada gantaalkan sababay inuu Trump meelaha ay tiradiisu gaarto uu kala cararo maraakiibta diyaaradaha xambaara ee waaweyn toojka oo ah gantaal weyn oo ay haatan Yamaniyiintu adeegsadaan waxa Yaman Sofiyeedkii burburay iyo waqooyiga Kuuriya uga soo iibiyay madaxweynihii dhintay ee Cali Abdallah Salah wax badan se lama adeegsan waxa lagu kaydiyay hangaro iyo hoosooyin dalka ku yaala ka hor inta aan gacanta ku dhigin kooxda falaagada ah ee Xuutiyiinta gantaalkan oo ay NATO u taqaano SS-21 Scarab waa gantaal dhul ah oo baalistig ah waana in yar la adeegsaday intii uu soconayay dagaalkii labada Yaman ee waqooyi iyo koonfur sanadii 1994 yeelkeeda walow gantaalkan la soo saaray 45 sanadood ka hor waa imika dib u howlgeliyay oo mudufikeeyay Xuutiyiinta oo sidoo kale dib u qaabeeyay iyagoo gacan ka helaya khubaro Iiraaniyiin ah cabsida badan ee gantaalkan laga qabo waxa qayb ahaan ugu wacan inuu adeegsado hanaanka loo yaqaano Inertial Navigation System ama INS oo ah hanaan iyada oo la adeegsanayo kombiyuutarka lagu xisaabayo booska jihada xawaaraha dhaqdhaqaaqa khaasatan bartilmaameedyada dhaqdhaqaaqaya isaga oo aan wax tixraaca ka helin dibadda wuxuu markaa akhrin karaa heerkulka xawaaraha jooga kaynaanta isagoo adeegsanaya wax loo yaqaano gyroscopic sensors oo ka caawinaya inuu garto walxaha dhaqaaqaya si xitaa ka xeel dheer sida uu insaanku u garan karo taasoo ka caawinaysa inuu saxdo shiishka bartilmaameedka iyo masaafadiisa gantaalkan dufcadda ugu horeysa ee toojka U dhererkiisu waa 7 mitir halka uu gacankiisu yahay 65 sentimitir waan wax ka dili karaa fogaan dhan 1200 oo kilomitir halka toojka B uu ka sii tiira dheer yahay uu gaari karo 185 kilomitir isagoo waliba jaraya xawaare dhan 700 oo kilomitir saacadii yeelkeeda dufcadda ugu dambaysa ee toojka C oo la soo saaray sanadii 1990 waxa la kordhiyay dhererkiisa oo laga dhigay 8.6 mitir halka gacankiisu yahay 2.8 sentimitir kaaga daran wuxuu gaarayaa 480 kilomitir waxaanay saddexda dufcadoodba ka siman yihiin inay qaadi karaan madaxyada caadiga ah kuwa kiimikaalka ah iyo xitaa nuclearka waxaanu gantaalkan ku diyaar noqon karaa ugu badnaan 16 daqiiqadood oo u dhaxaysa marxaladda guurguurka ilaa inta laga ganayo iyo 1 daqiiqo oo dib loogu celin karo marxaladii guurguurka si loo dhaqaajiyo gaariga sida marka la gano kadib iyo 18 daqiiqadood oo dib loogu cabayn karo waxaana gantaalkan xambaara gaari baribiyood ah oo 6 lugoodla ah oo lagu magacaabo Baz 21 oo sidoo kalena ku xiran yihiin hanaano u geegsan kara kiimikada iyo kahfalka kaasoo saacadii jari kara 70 kilomitir xawaare ahaan isagoo waliba gaari kara fogaan jirta 650 kilomitir tiyo aan wax shidaal ah lagu shubin waxaanu markiiba qaadi karaa 4 gantaal oo toojka ah oo uu ku jiro kan ku cabaysan Xuutiyiinta ayaana sidaa darteed waxay haystaan gantaalkan baalistiga ah iyo qaar kale sida gantaalka Tuufaan oo gaari kara Israel Sacuudiga iyo Imaaraadka gantaalkan oo u dhigma midka Iiraan ee Qaadir ayaa dherer ahaan gaaraya 16 mitir halka uu gacankiisu yahay 1.5 mitir tiradiisuna waxay u dhaxaysaa 1350 kilomitir ilaa 1900 kilomitir waxaana sida toojka gantaalkan laga gani karaa maxado guurguuraysa taasoo adkaynaysa in la sii saadaaliyo halka laga ganayo iyo goorta tusaale haddii laga gano xeebaha badda cas ee Yaman wuxuu gaari karaa magaalada Aylat ee Israel ay ka haysato Falastiin waana masaafo dhan 1650 kilomitir marka uu raaco khad toosan waxa loo yaqaano jid shimbiraadka gantaalka kale ee isna laga cabaaday waa Qudus oo u dhigma midka Ruushka ee KH-55 ee Kruuska ah waxaana gantaalkan oo ay horaanba adeegsadeen Xuutiyiintu uu kala baxaa Qudus 1 iyo Qudus 4 iyadoo ay Mareykanku Iiraan ku eedeeyeen inay iyagu siiyeen ama u farsameeyeen tiradiisu waxay u dhaxaysaa 1350 kilomitir ilaa 2000 oo kilomitir taasoo ka dhigan inuu gaari karo inta badan Israel haddii ay dul maraan hawada Sacuudiga iyagoo si toos ah u socda waxa dheer muuqaalada dilaaga ah ee gantaalkan Quds marka tiradiisa fog laga yimaado waxaana kamid ah inuu ku duuli karo joog hoose si aanu raadarku u arag waxaan hagaya hanaanada loo yaqaano INS iyo GPS labadaba intaana kuma eka ee gantaalaha ay Xuutigu haystaan waxa sidoo kale kamid ah Hwasong oo ay farsamayso North Korea iyaguna ay sii mudufikeeyeen kaas oo ay ku xiran yihiin 3 madax dagaal waxaanu gaari karaa ilaa 2000 oo kilomitir
ugu dambeyntiina gantaalahan ay xuutiyiintu sheegeen in iyagu dib u farsameeyeen balse ay qaramada midoobay iyo maraykankuba isku raaceen inay ka kala helaan iiraan iyo dhinacyo kale oo soo tahriibiya ayaa noqday kuwo keenay inaan la fududaysan kooxdan oo laf dhuungashe ku noqotay maraakiibta galbeedka ee ku shiraacata badda cas iyo gacanka cadmeed. maxamed xaaji, hadalsame TV.